kulan looga hadlayay dhalinyarada isticmaasha daawada xad-dhaafka ee overdose ayaa lagu qabtay magaalada Columbus oo haya maanta waxaa soo abaabulay qaar ka mid ah waalidiinta magaalada gaar ahaan Ramlo oo ah hooyo caruur koox ku dhashay dalka Mareykanka isla markaana ka damqatay dhibaatada haysata dhalinyarada bishii la soo dhaafay oo kaliya 3 dhalinyaro Soomaali ayaa u dhimatay isticmaalka daawada xad-dhaafka gudaha Columbus Ohio inkastoo oo lagu guda jiray xilli adag dadkuna ay ka walwalsan yihiin coronavirus haddana kulankan waxaa qayb ka ah waalidiin haween u badan iyo dhalinyaro waxaa dhankooda ka qayb qaadanaya xubno ka socday hay'adda caafimaadka Columbus waxaa lagu soo bandhigay sheekooyin xanuun badan iyo waliba taariikh mugdi geliyay qoysas badan oo ku nool Mareykanka oo sababay overdose-ka waa tan Ramlo jaamac oo sharaxaysa sababta ku dhalisay inay qabato barnaamijkan waxaan deganahay Columbus Ohio waxaan deganahay 23 sano waxaan maanta igu qasbay inaan waxaan sameeyo oon u sameeyo community-gayga waxay tahay waxaan arkay ciyaal badan oo dhintay ciyaal badan oo overdose ah caruuro badan oo waalidkood aan ka warqabin ciyaal badan marka la sheekaystay iiga sheekeeyeen dhibaatada ay qabaan oo ah shaming ceebayn oo ah maxal dhahaa self confidence oo hoos u dhacay isku maxal dhahay kalsoonidoodii oo hoos u dhacday hooyooyinkooda ay ka baqahayaan ay leeyihiin hooyadeen haddaan waxaas u sheegin hadday saas dhacdo dhibaato ayaana soo gaarayso Hibe Ibrahim waxay ka mid tahay waaxda caafimaadka Columbus Ohio waxay fariin u diraysaa dhalinyarada Soomaaliyeed message-kan u gudbinayaa dhalinyarada waxa weeyaan dhalinyaro kaligiin ma tihidin waxaan dad badan bay ku dhaceen oo inaga horeeyay ama inaga dambeeya waxa jira caawin resource badan baa jira haday noqoto Columbus Public Health haday noqoto meelaha kale resource-ka laga bixiyo fadlan raadsada caawin week bishan imika October bilowgeegii waxa u dhintay overdose Soomaali 3 qof oo Soomaaliya overdose u dhintay Hodan Maxamed waxay ka mid tahay hogaamiyayaasha jaaliyadda Columbus waxay aad iyo aad uga xun tahay dhibaatada haysata dhalinyarada waxay isla markaasi dhiirigelinaysaa qabashada barnaamijyada noocaana haddana dhalinyaradaas su'aalaha ay weydiiyeen waxa ka mid ahaa meesha dadka ajaanibta ilmaha ka dhiirigeliyaan Soomaalidu maxay ilmaha u bahdilaan anagana waxaan u maleynayaa dhaqan bay noo tahay in hebel baa ka fiican ee maxaad adiga dhulka ku dhigay oo macnaheedu tahay inaan dhiirigelino si ilmuhu hore ugu dhaqaaqo Ifraax Awl waa macallimad digtay iskuulka dhexe waana shakhsi yaraan ku soo galay Mareykanka wax badanna way la kulantay waxaan ka hadlaynaa ilmo yar oo wali u baahan guidance-keena qofku hadduu yar yahay hadduu weyn yahay wali uu u baahan yahay dadkiisa laakiin siiba waxaan ka hadlaynaa dad yar oo adiga wali gacanteena ku jiro oo ilmaheena ah oo inaan soo dhaweyno oo fahansiino waxaan noloshooda waxay saameyn ku leedahay iyo sida adiga la isaga baaneeyo iyo dakhtariin aan ugu yeerno ma aha ilmaha inaan tuurno ma aha inaan maxaa la yiraahdaa guriga ka fiijino ka erino dhibaatada way sii badnaanaysaa right now overdoses are at extreme high and we really don't want that to isticmaalka daawada xad-dhaafka runtii aad bay u xargagoosatay mana doonayna inay taasi dhacdo gaar ahaan dhalinyarada u dhaxaysa 16 ilaa 24 waa kuwa ugu badan u dhimanaya ama ugu xanuunsanaya waxaana haleela xanuunada maskaxda ku dhaca wasaaradda caafimaadka ee gobolka Ohio diyaar ayay u tahay caawinta dhalinyarada si loo badbaadiyo naftooda kulamada noocan waa kuwa aad u yar waa kuwa aad muhiim ugu ah bulshada Soomaaliyeed